misobroe anigu waxaan ahaa doctorka baryaa hadda anigu waxaan dareemayaa adiga caafimaadkaaga inuu wanaagsan yahay 2 saacadood ka hor shil ayaad gashay nasiibkaaga aad ayuu u wanaagsan yahay maxaa yeelay adigoo 500 feet ka soo dhacay misana waad badbaaday dhaawac yar ayaa ku soo gaaray nasiibkaaga aad u wanaagsan yahay ninkaagana nasiibkaaga kale ayuu leeyahay hadda qolka IC roomka ayuu ku jiraa ninkaaga 4 saacadood ayuu halkaas ku nasanayaa waad arki doontaa kadibna ha ka walwalin adiga laakiin maya adiga ma u tagaysid nasoo adiga nasasho u baahan yaa isdeji nolosha sideedaba khayrna waad la kulmaysaa sharna waad la kulmaysaa khayrna waa ku wadaa sharna waa ku wadaa khayrkan ku wada haddaan kuu sheego waxa weeye adiga ninkaaga noloshiisa wax dhib ah ma haystaan hadda fariiso bal fariiso tan sharta haddii aan kuu sheego waxa weeye ninkaaga ogaalkiisi uu maqan yahay uu dhumay 4 saac kadib ayuu soo naxay balse magaciisa iyo ciwaankiisa intaba waa u garan waaye xataa boorsadaada sawir kaaga oo laga helay waa la tusay kadibna wuu ku aqoonsan waayey mudane shilka ma u keenayna dhibkaan haa shilka u keenay shilka noocan oo kale waa dhaca waxaana la yidhaahdaa psychogenic qofka bini'aadanka ah qoraalka akhrinta shaqadiisa iyo dareelnimada intaas ma ilaabayo balse wixii kale oo noloshiisa ahaa oo habmaamuus iyo dhaqan ah intaas way u dhammaatay maskaxdiisa ma ku soo laabanayso laakiin ilaa goorme ah 1 bil 6 bilood 10 sano haddaan ku qancihayana waxaa rabaan ku dhihi karaa balse aniga dhakhtarnimadeeda runta haddaan ka hadlo qofka shilka noocan oo kala galo way u dhammaatay maskaxdiisa inay soo laabatana lagama yaabo abadan laakiin doctor ma la kulmi karaane obroy ninkaaga lafa badan ayaa ka burburay taasna wax dhiba ma laha waa la kabayaa waana la daaweynayaa balse daawo keliya uma baahnay exercise fara badanna uu u baahan yahay macnaha jimicsi ayuu u baahan yahay in loo sameeyo oo aad u fara badan wejigiisana aniga wax walba waan u dulqaadan karaa laakiinse isaga ayaan u dulqaadan karin haddii uu arko waa ku fahmi karaa miss obray ninkaaga operation guud marka lagu sameeyo uu bogsoodo kadib ayaa dhakhtar kale loo gudbin karaa dhakhtarkaas waa la ballamay balse dhibka jira wuxuu yahay ninkaaga oon caafimaadan hawshaas kale ma loo gudbin karo wejigiisa dhalooyin fara badan ayaa laga saaray laakiin marka hore waa inuu caafimaadaa dhakhtarkaas ingiriiska jiro ayaa kadib loo gudbin doonaa laakiin mudane maad ugu wacda doctorkaaseeti qarash wixii loo baahda aniga ayaa bixinaayo ma rabo ninkaygiina wax dhiba soo gaaro waan ku baryaa mudane iigu yeer axsaanayso
ma waxaad u malaysay inaan kaa fogaaday laakiin lagama yaabo adigoo marxaladan ku sugan inaan kaa fogaada aniga macquul maaha meeshaana waan kaa wadaayaa gurigeena ayaan aadaynaa waan ku wadaaya aniga kaama tagaaya kugu dhacayna may waxbana ku soo dhawow gurigan hore u soo gudub weli waxaan kugu soo dhawaynayaa adiga gurigaaga halkaas waa qolkii fadhiga halkaas waa jikadee halkanna waa qorkii martida hadda waxaan kaa rabaa oo keliya adiga inaad ii tilmaamtid qolkeena jiifka waan kuu soo noqonayso halo haa taaniya hadda ayaan nimid saaxiib haddaan isbitaal ka soo galnay anigaba hadda ayaan ku soo wici rabay yaa maya saaxiib hadda macquul maahan laakiin markuu caafimaadkiisa time noqdo waxaan kaa ballan qaadayaa qofka ugu horrayso oon gurigeeda ka casunaana inaa adiga tahay weliba casho ayaad noogu talagelaysaa oon kuu imaanaynaa saaxiib sidaadna iigu sheeg inaan la kulmo ayaan rabaa xataa haddii aad taleefon ku helaysid ha isoo waco waan u baahanahay okay bye aniga maxay ugu dhax ma aqaan waxay ugu dhax nafteedan ka cabsooday adiga ay badbaadi mooye marxaladun ayaan ku sii socday
noloshan hadda ku soo laabtay dhadhan iyo dareen midna iyo malaha maya waxay la mid tahay aniga indhahayga mara madow ku xiran yahay isna qom maya saasa dhihin indhahaaga marada ku xiran mar dhow way kaa furmaysaa noloshaada mugdigana iftiinaya isku bedelaysaa xasuustaada hore aniga wax daniya xaajaa kama lihi laakiin muhiimadda igu weyn waa noloshaada oo keliya ayaan u baahanaya aniga dib ayaan nolosheena hore u dhisanaynaa oo raaxada lahayd oo jaceylka ku dheehnaa waa ballan wax walba tartiibnay u hagaagayaan aniga ayaa ku dheh adigana ha ismurjinin aniga noloshaada iyo muhiimsan xasuus waa la iska helayaa haddii aadba adiga ii nooshahay ballan waa wax walba way dhismayaan jooji waa kana xafiiskaagiya maxaa dhacay maraacaysid miya kafa soo qaadba halkan anigoon wax garab kugu siinayn kafa soo qaad halkan waa xafiiskaaga dad kale ayaad la kulmaysaa shiraad qabanaysaa dad ayaad la xiriiraysaa marka waxaasoo dhan waxaa loo baahaya adiga inaad samaysid oo dadkaas aa wajahdid hadda dacabsiga waa horraysaa makula tahay inaan ka baxsan karo maskaxdaada haddii ay tala fiican ku siin weyso waxaa loo baahan yahay wixii qalbigaa ku jiro uu ku leeyahay inaad dhegaysatid wax walbay ku fududaanayaan aniga ayaa ku iri okay mahadsanid okay soo dhow saaxib noloshaad nooga dhuumatay sidii nal mar qura naga damay oo kale daqiiqad walbaan ku sugayna daqiiqadana sanad ayay noola mid ahayd master broy sidaar soma haa sidaar taakuur saaxib soo dhowow waan ku faraxsanahay soo dhowow waan ku xisna saaxib xafiiskaagana waa diyaar xafiiskan waa xafiiskii adiga aad ku shaqayn jirtay saaxib maxaad ka eegaysaa xafiiskan xafiis kalamaan waa xafiiska adiga brojeedka aad ku diyaarin jirtay wax kalamaan marka waxbaa iswelwelin adiga sii shaqay howlaaga sii wada anigana shirka galabtan sii diyaarinaya inteeda kale mid ogow caawa aniga gurigaada casho ku leedaha xaaskaaga aniga ayaa mar hore u sheegay run ahaanta anigu waan ku arka laakiin adiga taani aweli kumaysan arkin sidaas daradeed ayay 10 jeer maanta xafiiskayga taleefon kusoo celcelinayso waxay dhahaysa nikil ma yimid caawa casho ma imaanaa marka haddii adiga caawa cashada guriga aad imaan weyso waxaad ogaataa aniga naftirkayga guriga in la ii diidaayo waan ka qaaday beryaa waa sekretariyadaada qaybta kombyuutarka u qabilsan dhegeyso wiilkan iyo ogow okay mudane adaan kugu ogaa okay bye mudane wax walba waa sidoodii shilka korna feelashan ayaad ku shaqaynaysay hadda aniga kaama fogi kombyuutarka ayaan fadhiyaa waqti walba dib haatid isoo waco keliya okay mahadsanid شوط ما كلاعي اسكفير أبا سنة حلوتك تدي كلا اسكلافا سيد أنا وكلا سوى أنا سنة في عنا دنا وحطوه كرن أنا قد فوسين غو wixii fiican wixii xun aniga
waba kala saari la'ah maxaa kugu dhacay aniga iyo simran xiriirkeena sidee buu ahaa sidoo aan lahaa sida laba qof oo isqaba xiriirka dhaxo kale ayuu ahaa waa la sagaali jiray mar waa la kaftami jiray waa la ciyaari jiray problemkaasoo kale aniga naftirkayga inaan guursado waaba aan nacay sababtoo guurka sidiisaba aad iyo aad ayuu u dhib badan yahay ma jecli guur saaxib kaftankayga taa aniga iyo iyada dhibka naga dhexeey muxuu ahaa kaftan maaha wax dhib oo anaga aan ogaan ku sheegi karaa beerta ma dhib hadduusan jirin waa maxay warqadan aniga warqadan waxaan diyaariyey shilka koor warqadan waxay caddaynaysaa aniga inaan go'aan ku gaaray hantideeda inay shilin ku lahayn marka ii sheeg dhibka aniga iyadana dhex yeelay oo ku baryaa saaxib adiga ayaan ku dan sheegtay saaxib runtu waxa weeye shil koor aniga wax kugu dhacay moogi maxaa yeele leh adiga qofkaas waa aad ka soo jeesatay sidaadaba aniga inaan ku fahamsiiyo waa isku dayay balse adigu waad iga diiday oo go'aan buux ayaad gaartay go'aan sidee ah simran inaad furto ayaad go'aan ku gaartay maxaa kaloo soo baxayna dhanka jaceylka horta boqolkiiba boqol ayaad ka tahay qofkii aad jecleedna waad haysataa laakiin midoogow jaceylkaaga waa inaad xafidaa adiga waan xafidayaa taas waan ku qasbanahay nakiilkayga cidnayga maxaada karto saan filayo tabcan anigana faalkood ii fiirin jirtay ma xasuustid miyaa qofka ugu hore loo fiiriyo adiga ayuu ahaan jiray haddaba waad ii sheegtay inaan shil galayo soo maa maya aniga shilka gacantaada kama arkin laakiin waxaan kuu sheegay inuu dhib kugu soo socdo adiga laakiinse nasiib wanaag dhibka waad ka badbaaday maxaa yeelay ma aadan dhiman anigana markii aan dhibkaaga maqlay waxaan isku dayay london xataa inaan adiga dartaa uga imaadon isbitaalka ugu soo booqdo laakiin naagtaada ayaaba kugu dadaashay waxayna go'aan ku gaartay dhib walba keligeed inay ka hortagto naagtaada xitaa inaan ku arko way ii diidayda aniga maaha saaxiib doctoorka ayaa diidayay aniga xataa markii aan baryo weliba aan ku madax adeegay ayaa la ii ogolaaday saaxiib maahana la iima sii dayn lahayn weyti xataa qofkan waa kaasaayay sida naftirkeeda waaye naag ninkeeda yaa ka celi karo waa ka macbaratee doctor xataa kama celi karo waa tahay aniga faalkay fiiri jacaylkayga inuu yahay mid sii jiraayo iyan kale looma baahna jacaylkaaga inaad faal u fiirisid naagtaada indhaheeda fiiri waad arkaysaa jacaylkaaga intuu la egyahay halgeeraaraan ku hay macanje waayaan ku yiri may ha ii sheeg waan ku baryaayaa maxaa soo mataga haddii kale haddaa ma tagto dhib male anaa cunayo imaanaya gurigiina yaa dhib male haddaadan imaan anaa imaanayo beri subax si kaligaa hotelka igu imo waan ku sugayaa waad iga soo hormartay wiil fiican ayaa tahay balantina waad ka soo hormartay sababtaad intii ugu balamisay maxay tahay dhibkaaga waan dareemi karaa aniga sidaadna su-aalaha aad weydiinaysa jawaabteeda aniga ayaa ku haya dabcan cid kalena kama helaysid oo aniga ahayn adigii simra arooskiina si kadisa ayuu ku dhacay maraykanka ayaa shaqo u aaday markaad ka soo laabanaysana gabadha adigoo soo guursada ayaa la timid marka hore labadiina waad isku farxsanaydeen laakiinse marka dambe ma aqaan waxaan iigu dhacay aniga dood iyo dacwo inaan furo halkan kuguma yeerin laakiin waxaan rabaa arrin muhiima inaan kaala hadlo waa maxay shilka ka hor aniga iyo sadaad ingiriiska ayaan jirnay shilka intaadan gelin 2 saac ka hor taleefon ayaad naga soo wacday waxaadna tiri simran guurka aan guursado qalad ayay igu ahayd mideeda kale caddayn ayaad igala hadlaysay caddayn ah haa caddayntaasna waxay ahayd simran qaladka ee gashay caddaynayso waxaadna tiri cid badbaadinaysa ma laha caddayntaas maxay ahayd anigaba waan ku weydiiyey waxaad tiri hadda waad daahsanahay markaan taga ayaan ku soo wacayaa kadibna adiga shil ayaad gashay marka caddayntaas maxay ahayd haddaan ku weydiinayaa oo adiga xanaaqkaa keentay horta aniga ma sheegi karo adiga shilkaaga sida uu u dhacay laakiinse waxaan ogahay caddayntaas inay ahayd naagtaada mid aad ku furi rabtay
كان كوحرة كان حالي وحنا رادنيس معناه يقول كذا ينسوق عليه وقصنا حلو نقطة ها دوكمنتس أيان قل كباري سيدا الاسبتال كوغو soo baxday waxay la tahay inaad burugsan tahay adiga waxba kaalmo raadinaysa mis waxba adiga qarinaysa adiga noloshan hore sideed mistagaali jirnay dagaal ayaa naga dhaxin jiray adiga maxaa yeelay shaqo aada faraatag saciga aada jirtay anigana waan cilloon jiray maxaa yeelay aniga adiga ayaan kuu baahnaa adigana shaqadaada ayaad aada jirtay laakiin labadeena uma qaldanin aniga baahidaada jecel ayaa iga keenay adigana shaqadaada ayaad fiirinaysa oo waa shaqo wax loo baahan yahay ma jira go-aan inaan ku gaaro furiin iyo kugu yidhi sida adiga runtii sheeg ma jira waxaas horta nolosheena hore wanaag iyo xumaan intaba waa ay ku jirtay laakiin adiga waxaad isku dayaysaa xumaantii oo keliya inaad xasuusatid laakiin taas kuma fiicna waxaa ku wanaagsan wanaag oo keliya inaad xasuusatid haddii aad xumaanta oo keliya maskaxda ku haysid dad baa naga dhex faa'iidaysanaya iyo dhicin marka inaad xumaanta xasuusatid wanaagga raadi कितना इंतजार करवाओगे? كو دحين ودالنا هرتا هي سو سخنا حبي وناس صاحب مركان الكادي وشغلنا رنتي هذا الغفاري صاحب عيارتي قد انا شيل كدب دور ما موتو كليه حفيز كان فديها الا هذا لما انا قبس هذيك واحد له سفر انا اولندن او سعوده maxay soo leeyahay aniga bil oo kaliya ayaan maqnaanayaa
تذكر الكنترولات أنا دقيقة عندنا شوف أنا دقيقة رمتي وأنت تاجرنا هذا أنا وأنت أصلا وبحيل لكن حريرنا يا تلفون أيا لبدينا أنقود حريرنا تلفون كأنه بلنا هاي اللعبة نذكرك اوكي good luck ciao بريا مي مان كرتا mudane bog balanta soo imaanan dirin ها 19 نوفمبر انت خوف ان بلان لها يسو يري 19 نوفمبر 4 qofood ay la kulantay qofka ugu horeeyay wuxuu ahaa Nickel waxaad kula kulantay company 5 saac oo subaxnimo qofka labaadna wuxuu ahaa director waxaadna kula kulantay xilli qada maqaayad qada ah 9 saac waxaad la kulantay nin la yiraahdo Raman 12 saac maqribnimana Nickel ayaad la kulantay oo la yiraahdo جمال ها isaga bilaabalana ayuu ku yimid laakiin si arintu u socdo markii aan ku sheegay adiga waxaad tiri hore u soo dhaafay markii soo dhaafiyeen waxaan kaliya xasuustaa inaad si xad dhaaf u xanaaqday adiga isla habeenka sad xanaaqdina shil ayaad gashay wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyay oo la kulantay adiga بريا ميشي كرتا جمال meeshaan ka heli karo जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे Excuse me? shaman almaadiga Aku salam. Nickel Abraya iyo waranba. Isbitaalka ka soo baxday hay maxaan ku qabtaa ii sheegba. afaarahan wax iga sheeg afaarahan faraha inaad ka qaadid wixii hore dhan iska ilmaan ad naagtaada minanka kugu sugaysaa bax oo tag nolol cusub galaysaa alladii fatnaada la yiri arab wixii hore iska ilow aniga nolosheeda hore baabadeeda dhan way xiran waxaan rabaa inaan furo nolosheeda hore aan wax ka ogaado marka arimeyga u rab adaa wax ka ogay wax iga sheeg adaan ku wimid ii sheeg alag dhaqso may horta sug aniga arintan hadda masiirkan aan soo qaaday rufiyaanima ii maleeni aniga waxaan waa ka ganacsadaa ma aniga jaraar ma ii bariyo see way adiga waxaway bini aadanka horta qalad waa ka dhacaa khaasatan naagaha haddii la cidleeyo macnaha dhib waa ka imaan karaa laakiin waxaa lay fiican tahay aniga waxaan kugu yimid inaad wax iga sheegtid nolosheeda hore please noloshaada hore maxaa weeye noloshaada hore markaa shilka aad gashi kadib naagtaada waa ku dadaashi noloshaada kaali arag warsharabaya waana igu waxay aniga meeshaan igu waxba kuma dhihin halkan waxaan ku yimid inaad ii sheegtid naagteeda gacliyaheeda hore iyuu ahaa maxaa ka dhexeeya arrintooda ilaa intay socotay ii sheeg wax ma qashin haddii badhimanin wax ma ka qabo wax ma ka qabo waa dhima lahay maanta waa dhima lahay waxaan kuu sheegaa calaa kulli xaal wax ma ka qabo ani dhaawacaaga hor haddaad rabtid inaad soo faagtid laakiin waxaan kuu sheegaa aniga shilka saad u gashi kabacdi arrimahaaga dhanba ani waa iska jooji farahan kala baxay laakiin 24 saac kabacdi iyadoo koobanan kuu keenaa gacalyahaga naagtaaga waxaa la dhahaa kabiir waxaasan joogaa hotel faransa meeshaasaas joogaa tag fanaan hotelkaas ka heesa waaye kabiir hotelka wuu ka tegey marar badan waa isku dayay inaan wax fahansiiyo laakiin muusan fahmin hotelkana soo ugu tegey ilaa hadda wax raashin ka cuna ma laha xitaa wax hees dhegaysanay ma laha aniga ninkaas waxaan u qabanin ma laha guri weyn ayaan siiyey hotel weyn aan shaqo ka siiyey baabuuraan siiyey laakiin abaalkayga saaga ku gud hadda gabdhaha magaalkan jooga nuska nus asay ku waasheen heerkaas anoo gaarsiiyey oo haddana waa guuray gidoon la'aanoo sameeyey waa iga tegey imana soo laaban ka waran singabuuran shaqo ka helo yidhi meeshaanu iska aad intuu deganaa gurigan hotelka siiyeen furiis ma heli karaa ha way heli kartaa anaana ku siina hadda xafiisku yaala haddan ku keenaa gurigiisa maxaa ka doonaysaan adiga waxaan rabaa inaan soo arko ma xuntirna maxaa kugu dhacay inta u socotaane gaajo ma hayso gaajo ma hayso maxay tahayne raashinkaad jecleed ayaan kuu sameeyey alxaasil aniga beri subax aroortii waa inaan hordad kaca shaqo muhiim ayaan leeyahay ninkil ayaantan sidii hore matiid gacali maxaa kugu dhacay saad isbitaalka uga soo baxday ma fiicnid haddii aad baxaysid ma aadad shaqada
markaad shaqada ka soo baxdina guriga si dirata uma timaadid aniga wax maan kaa haleeyene ii sheeg waan ku baryaa wax dhimaan geyste waxba iima sheegaysid aniga fiiri adiga waxba iima sheegtid laakiin ninka martanba kuma su'aalayo adigana martanba jawaab ha iga codsan fadlan haddana waxaan rabaa keligay inaan ahaado hay soo dhowaan keligay ah seen keligaa seen kugu sii daayaa ii sheeg nikil aniga ma waxaan diyaar u noqday in aan keligaa kusii daaya markii aan ku guursanayo dhaawaca markii aad noqotay nikil aniga waan kugu dhibtooday rafaad fara badan ayaan kaa soo maray soo ma ogid 6 bilood inaan adiga ku kor fadhiye hal habeenkaa ma aana hurdin nikil sidee kaa noqotay hadda seen kugu daayaa meeshaad caafimaadkayga fikirayso waxaa waa dooneed inaad i disho سنغافور مeel kasta hotel ku yaala aniga waxaan u diray telefoon waxaana lii sheegay kabiir inuu Singapore ku sugnayn aniga midaan ku sheegaa haddana kale waxa waaye kabiir 2 bil ah baasaboorkiisa asdhacsanay nin 2 bil baasaboorkiisa dhacsan siyaas wadanka ugu baxay ii sheegba taxsimiya mabuwa adan ku hadloo yaani haddaba maamulaha hotelka been ii sheegay waa dhici kartaa shilka kadib macnaa kabiir inas maamulaha hotelka been isku cabi been mi taada kale waxaan ku sheegaa aniga adiga waxaad mareesi markaa shilka galeeso kana ku sheegaa dhulka saan waaye buura koreesi buura baabuurka askore baabuurkana buurka waxaas dhulka u jiri 500 feet baabuurkii galawa siri okay ninkii baabuurkaas arko meeshii aad ka soo dhacdina arko macquul waa isleeyahay wixii gaal laakiin baabuurka aad kaligaa ma fulin naagtaadana waa kula fuushi ad inaa mishidooni camal naqatido naagtaadana cijale asgaar aqli ma gali karaahe adan kula hadlooya lama filaan ma noqon karto lama filaan waa naqi kartaa tan laakiin lama filaan ma naqi karto ogaawe warqadaan fiiri 19 November ku qoran warqadii kabiir as shaqada iskaga casili waaye waana habeenkii adiga shilka aad galeesi isla markaas ay ku toosan tahay akhri si fiican u akhri haddaba waxaa dhihi rabtaa adiga waa lagu dul rabay ma amino sidmiya dad iyo duurba waxaa la yidhi wax walba maaragtay ka filo waxaa jira waxyaabo badan oo qofka bini'aadanka dhawaaysa isku amino hore haddii loo soo weeraray haddana waa la soo weerari karaa macquul waaye laakiin waxaa fiican intii la soo weerarinba inaad sugin waxaa la rabaa ninkaas inaad ka hor tago hadda aday ku jirtaa kabiir sid ku soo saari leed dhagax boqsan le ka soo bixi leedaa iyo dhulka hoostiis le ka soo bixi leedaa halo kabiir miyaane
kabiir adiga hadalkaas iga daa waxaan u malaynayaa aniga ninkayga in uu shakeeyey waqti walba adiga arrimahaada ayuu dabagal ku hayaa marka sangabuur sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaad ku tagtaa kabiir adiga madax adeegaan iska dhaaf waxaa lagaa rabaa inaad meesha sida ugu dhaqsiyaha badan ku tagtid haddii aadan tegin meesha ayuu kuugu imaanayaa hadduu kuugu imaadan wuxuu ogaanayaa ani adiga arrimaha naga dhexeeyo marka fadlan hadalkayga maqal kabiir haddii aad baxdid labadeynaba dan ayay noo tahay soo ma ogid inaan kulanna iska dhaafe taleefonka aan kugula hadlay 20 kilomitir ayaan u soo jeexa aniga saas maxaad u leedahay kabiir aniga waan ku jeclahay kabiir maxaad saas u leedahay aniga adiga waan ku jeclahay adiga la'aantaana ma noolaan karo ma waxaad u malaysaa ilbiriqsiyo meelaad adiga joogin inaan joogi karo aniga haddii aad sidaas leedahayna waan kuu imaanayaa laakiin markii aan kuu imaado hawsha waa inaad si dhaqsa u soo gebagabaysaa maxaa dhacay warniyo waxaad ma waalatay maxaad ii qabatay aniga wararayaan inaad xanaaqday aan ku iri wax adiga lama filaan ha samaynin sidaas darteed aan gadaashaada ku imaado waxaa malaysaa gabdhaas haddaad jirta adiga inaad si xurnimaad ku noolaan kartid maxaan sameeyaa ii sheeg aniga ma waxaan oonaa inaan arko naagteedii gacliyada hormaayo tani waxay kugu jirtaa inaad ku fiirsatid waxay samaynaysa iyo waxay ku dhaqaaqaysa adiga dantaasay kugu jirtaa saan hadlaysaa aniga damiirkayga maa dhintay bas waxaan fiirsadaa naagteeda intay gacliyada kala kulmayso maku fiirsaa waa inaad sii daysaa in ay kabiir la kulantaa hadday iyada kabiir la kulmin adiga ma la kulmi kartid kabiir nikil masaasaa kusii daynaysaa ninka adiga nafsadaada goy rabe naagtaadana si sahlan ku wareejistay waana hubaal qoftaas mar walba waxa isku dayay ninkaas inay la kulanto haa balse waxaad ogaataa maanta dartaa inay iga badbaaday laakiin mar haddii ay kulmaan cid iga badbaadin kartaa ma jirto labadoodaba waan dilayaa labadoodaba waxay iga badbaadayaan inta ay ka kulmayaan oo keliya mar hadday kulmaan nakiil aniga inaan kaa taga ma rabin laakiin duruuf ayaa igu kalifayso adiga maa cimrigaa inta ka dhiman iga maqnaanayo nakiil 3 maalmood oo keliya waayo kadibna way soo laabanaysaa shimlaane meel fog maaha haddii aan kuu xiso anaa kaa daba imaan karo anigaba waan ku imaanayaa hooyaday markay caafimaado kadib laakiinse hooyada teleefon lambarkeeda ma siinne haddii ay qablaad waaban ku siin lahaabo laakiin mobeelkaadan kaa soo wacayaa hana idaasana nakiil midna ogow haddii ay maskaxdaada ku diido go-aanka qalbigaaga waa inaad dhegaysataa dhibaato kastoo ku haysata way xalismeen waa mahadsantahay waan ogahay taas laakiinse anigaa go-aan ku gaaray dhibaato kasto inaan aniga xaliyo oon baabi'iyo haddana taleefonaan sugaynaa
halo nikhil shakiga run ayuu ahaa shimlaa ma aadin naagta itranbuur ayay aadee marxaba adiga dabagal ku sameeyo waayahay anku salaam hore soo dhaaf soo gudba ilaa ay hadeertaan qof u imaada malaha qolkaas ayayna degan tahay laakiin waxay la tahay inta inuu ugu imaanayo kadib ninkii wuu isbedelay maxaa yeelay asaga aniga ayuu ii baahan yahay anigana asaga ayaan u baahanahay marka waxaan rabaa halkan sida ugu dhaqsiyaa badan inaad ka tagtid orod iska bax aniga ma baxayo weliba keligay ma baxa adig man ka tagaa waad ku qasban tahay maxaa yeelay aniga ninkayga sidaan been ugu sheegayo waan daalay intaan ka badan uma sheegi kara been تلفن إن هذا الكلام كنا مسنا واديتي واحد يقول قصبتي إن هالكن كوجو إماده أنا أنا ما مدوام كرنو هذا الكلام معني سوحن كده دمنيا نكس أنا جعلاتي ها وان جعلها وليبو شلك مركو قال كذب أنا نكل لا إذا أيام وجعلها وأنا جعلها نكى إذا إسكب حريق هذا ليس أنا ما حيدم بينايو أنا أنا دي لودي أو كلي أيام كودم بينايو أنا ما كله باي ها ودي إلوبي سوات قصب ما هي اللي كرو وهذه إلوبيسا محايا لأني نكى أنت كبدن ما قيامي كرو طب هذا الكيس في عنو دقيس ما أنت كنت هدي أتنيست أنا كنا يقفوا وحنكو خصمنا أديك إنك هذا حفظنا نقول لفتو عمل بابورك مموذ جد من غوريه به انت كوب حجاري
nagula soo aadiye hoy ay dili ma naftay waa jeclahay سمي الله سنة لنجرا ويا جوجي بابورك جوجي صاحب فاتح وراني قولك يا مرقع دي ماشي صراحة خفك سيا يسوقه وصحه صعب بابورك صح haddii aan doonani waan ku dili karay hadda intaanan ku dilin dhaqso wejigaaga tus wuu dhintay meeshan weligiis ma imaan waxaad arkaysa wax jiro ma aysan ahayn aniga iyo ku indhasraxaada baan baad ii sheegaysaa aniga ayaa indhahay ku arkay labadiinoo sheekaysanaya maya waxaad aragtay waa waxaan aniga kugu indhasarcaadinaya anigii adiga ma midoobi karno hadalkaaga micnihiis wuxuu caddaanayaa ninkaas ina jeclaatay haa waan jeclahay ninkayga shilka kadib aniga si saa'ida ayaan u jeclaaday waan jeclahay anigane maxay dambeynaya inaad iloodid oo kaliya ayaa kuu dambeynaya sidaan kuu iloobi karaa aniga waad iloobaysaa aniga ma rabo intaan ka badan ninkayga inaan qiyaamo iska kaylow waan ku baryayaa intaan ka badan aniga nolosheeda ma inqaami karo hadalkan hadda waad i dhahday mar dambe afkaaga hadduu ka soo baxo waxaad ogaataa adiga iyo ninkaaga inaan idin dilayo oo xabadaan idinku dhifanayo kaa idinka siinaya ninkil waan ogaa aniga adiga iyo jimad laal in aad isoo dabagelaysin sidaas darteed ayaan kabeer uga dhigay in uu nool yahay laakiin ma noola asaga wuu dhintay sabab been maxaad igu sheegtay beentay maaha adiga ayaa dilay weliba hal xabad kuma aadan dhufan 2 xabadood ayaad ku dhufatay wuu dhintay kabeel waa runtii laakiin waxaa runa intaadan iguursan ka hor nolosheeda inuu qayb ku lahaa waxaase qalad ah inaanan ku fikirin nolosheeda inuu dib ugu soo laabanayo wuuna ku soo laabtay halkan ayuu yimid wuuna ii hanjabay isaga wuxuu iigu hanjabay in haddii uu siduu rabo aanan u samayn ninkaaga ayaan arrinteena xabad xabad ugu sheegaya anigana inaad iga fogaateed ma rabin waxaan ku qasbanaaday aniga meel walbuu igu ballamiyo inaan ugu tago adigana maalin maalmaha ka mid ah
sirteena ayaad ogaatay xaggaas ayaad timid kadib adiga isaga waad dagaasheen waad xanaaqday adiga waadna dishay markaas kadib meydkiisa inta qaadnay ayaan baabuurkaaga saarnay xuduudda meel u dhow ayaan geynay waana ku soo aasnay meydka markaan soo aasnay kadib anigii adigoo soo soconno ayaan shil galnay wax walbuu dhacay mar hore maxaad iigu sheegi weysay maxaad iga qarsay aniga ma waxaan kuu sheegaa adiga inaad dilaa tahay mise waxaan kuu sheegaa naagtaada in ay qiyaamooley tahay aniga markaas kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan maskaxdaada dejiyo oo weliba wax fiican oo keliya ku fahansiiyo adiga waxaad heshay sawirro adigana waxaad u tagtay ninkii sawirrada kuu soo gudbiyey waxaadna rabtay in aad u adeegsatid kabiir oo adiga horey aad u dishay inuu arrimihiisa kuu soo baaro adiga kuma aadan fikirin kabiir arrimihiisa haddii uu soo saari karo ninkii dilana inuu soo saari karo anigoo ma dulqaadan karo adigoo xabsi lagu geenaayo aniga waxaan ku fikiray labadiina inaan idinka dhigo kabiir in uu nool yahay kadibna aan inta baabuurka kabiir qaado buurta ka gamo sida filanka meeshaas uugu soo gabagaboobo laakiin inta ka horeysa adiga gacanta igu dhigay hawshaan aniga qabyada uga tegay adiga ayaa dhammaystiraayo aniga kabiir inuu nool yahay ayaan idinka dhigay adigana jabal ayaad uga dhigaysaa inuu nool yahay kabiir laakiin adigoo bursanaayo inuu buurta ka dhacay uu sidaas ku geeriyooda ayaad uga dhigaysaa wax walbana inay sidaas ku soo dhammaadaan ayaa la rabaa filanka saanas buu wax ku yahay una anseero ninkii waa geeriyooda waaba fiican tahay adna macnaha ma dilin inaad dishid ma baraweyn baadi laakiin waxaa nasiib xumo eh ninka intas dhimanin ka hor aad wejigiisa ma arkin laakiin wax kasta waxaa nooga daran hadda waxaa loo baahan yahay inaan meeshaan ka tagno ganad buur si dhaqso aan ugu tagno degdeg ee weliba nikhil hee maxaa dhacay maya socodkeena anaga kuma aana khasaar waxaad ogaateen naagtaada si xaddaaf inay kuu jeceshahay adiga marka nolol cusub bilaabo hadda gaawey muusan nidiiwaa wixii hor aliska hilmaam adiga naagtaada nolol cusub markino ku baashaala marxaba halo nikhil sidoo ugu dhaqsiyaha badan gurigayga igu imaaw maxaa dhacay xaalad soo kay maa dhib maa jiro khiyaano ayaa meeshaan ka socota nikhil waa lagu khiyaamayaa adiga khiyaano ah haa wax walba taleefonka uguma sheegi karo gurigayga igu imaaw gurigayga markaa u soo baxaysidna qof iyaysan ku ogaanay si dhuumashaa iigu imaaw sidaas ayaan isku ognahay nikhil waaya Tanya? 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 ii sheeg Tanya maxay ahaayeen waxaad ii sheegi rabtay Tanya? دانيا نيكل دانيا نيكل ما حدا عايه حسن waxbaan soo xasuusanayaa dhulki
oo u dhawaa hay dhulka maxaa waay xuduud u dhawaa ha meesha gee hay duur waa meesha waa ogahay laakiin tani aniga waxay ii sheegi leedahay adiga maxaa san u yeeshay ha aniga wax bay ii sheegi kartay hay maxay ku sheegi leedahay ma aqaan waxay yihiin laakiin si fadlan waa ku baryaa dhulka banaanaha oo xuduud u dhawaa igey meeshaasan soo xasuustay ma aqaan wax jiro fadlan igey meeshaas igey xuduud agteed hay ninkan had isnikilyahay adna yaa loo ahayd ee sheegbo امس واحد ضاف انت كبدن امد القادن كرانيغا معناها انت كبدن ما نجلسن كرو قرن وركيga dhageysta adiga wax ma khlasama waqbariya fadlan gaariga iga dago roob adoo jinimo ku ah ha sida darteed waxaan rabaa roobkan qabowgis madaxa inuu ku dhaco kadibna maskaxda ay qabowdo roobka daga yaqay
dartay inaad u qoydid aniga roobka kama fikiraayo ee waxaan ka fikirayaa dhibaatada adigu haysata oo indhahaaga iga muuqda garab ma ku siin karaa habeen saq dhexe wado cidla ah roobna da'aayo gabar keligeeda misna ilmaynaysa yaa maxaa dhacday waxay markhaati ka tahay dhibaatada nolosheeda haysato waana ku mahadsan tahay garabka aad i siisay sidaasa dhina aniga haddii aanan garab ku siin lahayn qof kale ayaa ku siin lahaa loomana baahna ninkaaga arrimihiisa inaad iga hadashid ama arrimahaaga adiga muhiim kuuma aha laakiin aniga ayay muhiim ii tahay wax badan ayaan silax ku dhex dabaalanayay maanta waxayba iga haysaa arrimahaygoo dhan in aan kuu sheegto adiga taas ayaan u baahanahay ninkayga anigoo raalli ah ayaan guursaday laakiinse xaggiisa wax aan ka ahay ma jirto aniga jacaylkayga oo dhan waxuu la mid yahay katinad bilad sharafoo qoorta u suran markii uu doonana xafladda ayuu la tagaayaa marka uu doonana kalaabka ayuu la tagaayaa aniga qiimadhan agtiisa kama lihi xiriir nin iyo naagtiisa ka dhexeeya nagama dhexeeyo aniga asaga agtiisa waxaan ka ahay shay raqiisa oo guriga u yaallo baabuurkiisa marar badan ayuu iga dejiyey laakiin markan waa markii ugu horreysay habeen saq dhexe weliba roob da'aayo misna waddo cidlo ah magacay sheegta muxuu ahaa simron simron adigii ninkaaga xiriirkan iga dhexeeya aniga waxba kama qaban karo balse waxaan kuu sheegayaa damiirkaaga adigoo keliya inuu kuu baahan yahay dadka qaar waxaad arkaysaa farxaddooda ayagoo gacmahooda ku jira misena dad kale ay farxad ka baryayaan marka adiga farxad gacmaha ku jira dad kale ka baryan fadlan adiga heesaa ayaan kuu malaynaya ilaan abwaana waa tahay heesaaga sidiisa ugu dambayn abwaan ayuu isku bedelaa aniga waxaan xasuustaa hadal ay hooyadayda dhahday go-aanka maskaxdaada haddii aad ku qanci weyso go-aanka qalbigaaga dhegayso dhibaat kastoo ku haysata waxaad ismaysaa marka adigana go-aanka qalbigaaga dhegayso mahadsanid adigaa mudan jaakadaada maya si dhib leh ayaan roobkaaga badbaadiyey marka tacabkayga ha ka dhigin hal bacad lagu lisay laakiin waa marka ugu horeysa aan kulanno laakiinse marka ugu dambeeye maaha mahadsanid asbrinka intee dhigtay simran madaxaga xanuunaya asbrinka intee yaala intee dhigtay asbrinka simran maanta o dhan aan kuu qeelinaya mii maqashid miya miyay xanaaqsan tahay maxaa artaa inaan ku raaligeliyo okay waxuu kama qaba raal lahaw haddii sheeg waa ku raaligeliye yaqa waa igu jaboosa ayaan ku dhahay jaanisna kuuma haayo albaabku waa furan yahay soo gudub
mudane maxaad la murgaysa adiga waxbaa ka baqin baarka naqshadiisa dhan waa bedelayaa haddiiba xaaskaaga sanad gurida dhalashada ugu dhigays wax walba anaa habeenaayo mahadsanid laakiinse simran iyosan ogaan ma ogaanayso kalisaan rabaa inaan ugu dhigo farxada waad ugu dhigi kartaa laakiin hal mid ma kuu sheegaa xaaskaaga aad ayay u nasiib badan tahay maxaa yeele waxay heshay nin aad iyo aad u jeclan haa aniga xaaskayga si xad dhaaf ayaanu jeclaa laakiinse jacaylkayga maysan arag sababtoo aniga wakhti walba shaqo ayaan ku mashquulsanaa iyadana way cidloonaysa hadda waxaan rabaa xafladda dhalashadeeda inaan nolol cusub ugu bilaabo oo aan tuso nikel obroge ee jecleed isagana si xad dhaaf inuu jecel yahay marka adiga hawshee la wata All the best. ahaye maxaad ka fikiraysaane maxaa kugu dhacayna labadana qalad amaan samaynaynaa maxaa way qaladka aan samaynayna ninkaaga isagoon raali kahayn inaad ila kulantid meesha inaan ku kulanno weliba waxyaaba badan ay dhex maraan maxaa kugu dhacayna maxay tahay lama filaankan aad igu hadlaysid aniga gabar roob ku dahay inaan garab siiyey waan ogahay balse managu uma malaynayna reer inaan duminayo waan qaldanahay maxaa soo wadaane ninkaaga aad buu kuu jecelyahay jacaylkiisa inkastoo uusan ku soo bandhigin sax dhaaf inuu ku jecelyahay maantaan la kulmay oo waan arkay inuu ku jecel yahay ayaan dareemay adigoo ku hadlay aniga waxaan kuu sheegay been miyay ahaayeen ii sheeg adiga hadalkayga naa fahanto isku day ninkaas aniga markayga hore waxaan hoosay inuu qaldan yahay oo adiga dhibaato ku geysanaya balse maanta waxaan ogaaday inuu ku jecel yahay adiga qiyaameynaya maskiinkaas marka waxaan ku dhihi lahaa khiyaanada ka daa kaale ninkii maa maskiin ahne aniga hal bil ayaan kula seexanayay hadda maad ogaatay ninkil inuu maskiin yahay ii sheeg adigase maxaad samaynaysay adiga amad naa kala jeclaateena sidee il hadlaysaa waayahay maxaad ninkil ugu marmarsiyoonaysaa haddii aad rabto waddadaad inaad iga leexi aamus aniga qofaan adiga ahayn oo naaga lama kulmin salaadle war aniga beenha ii sheegin haddii aad iga xiistay si bareera ayaad ii dhihi kartaa waan kaa xiisay raggiinoo dhan hal nooc ayaad u samaysan tihiin naagaha markaad ka xiistiin waxaad tidhaahdeen iska bax taasne mid aqli gala maaha adiga haddii aad aniga iga xiistay waan kaa tegayaa nolosheeda inta ka dhiman kuuma soo laabanayo simran halkan maxaa kasoo doontay kabiir aniga waan kaa ahaan waaye waxaan u malaynahay inaan la-aantaa noolaan karo laakiin ma noolaan karo la-aan simran istajiib kabiir waan ku baryaaya ha iga dheeraa simran maxaad samaynaysaa dadkaana arkaayo dadka hana arkaan haddii ay doonaan sharafteeda ku cayaarin aniga cid aan ka cabsanayo malaha waan ku baryaaya kabiir qalad yar oo dhexdeena ka dhacay sidaan dhan ha noogu kala fogeynin waxaad idhaahdo waan ogolaanaya kabiir waan ku jeclay ha iga dheeraa waan ku baryaaya kabiir wax walbood igu amartid waan qaadanaya kabiir fadlan waan ku baryaaya ha iga dheeraanin waan ku jeclay kabiir fadlan ku jeclay ord meeshaan isaga tag kabiir sidaad u hadlaysaa ma tegi kara aniga waxaad igu amarto waan ogolaya kabiir waan ku jeclahay indhahayga fiiri soo kuma jecli kabiir kabiir waan ku jeclahay aadan kuu jeclahay kabiir kabiir ay fogeenin kabiir haddii aad isku daydid inaad iga fogaatid aniga adiga waan ku dilayaa xabad ayaan kugu dhufanaa anigana waa isdilayaa kabiir taas waa ballan aniga ayaa kaa qaaday ها كبير وقلت لا يا تدي قديراتت
तो kabiir ma iga tegaysaane simran weliba anigoon ogeyn maad iga tegaysaa haddii aanan taleefon u diri lahayn hoteelka ma ogaan lahayn adiga inaad tegaysid simran aniga fursad iima aadan siinin inaan dantayda kuugu sheegto haddii aad dood ii qabtidne maxaad iigu sheegi weysay aniga waan kuu sheegi lahaa markaan baxo kadib kaalay markaad baxdid maa ii sheegi lahaydna ii sheeg nin rag haddii aad tahay sidii fulaygii maxaad u qaxaysaa ii sheeg aniga ku arkaayo indhahayga hortooda ka sheeg runta dhaqso haddaba hadalkayga dhegayso qaladka nolosheeda ugu weyn aan gala waxay ahayd adiga inaan kula kulmo haddana qaladkaan gale ayaan iska soo dhaqayaa kabiir igala sheeg kabiir saad iga tegaysaa ii sheeg igu dhegin igala kabiir kabiir waan ku jeclahay hadalkayga dhegayso kabiir aniga ninkayga ayaan adiga dartaa uga soo tagay adigana waa ka iga tegaysaa see waay kabiir kabiir naa wax ma kuu sheegaa waan ku baryaa kabiir waan ku jeclahay kabiir kabiir aba waan ku baryaa ayaa iga tegin hadal kuu jeclaa kabiir simran kabiir 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 maxaa samayn rabtay adiga soo ima dhihin waddadayda ka hor leexo waxaan raadinaya filkan inaan arko maantana waan arkay riyadaan raadinaya maanta ayaan helay waana iga rumowday riyadeeda adiga maxaad umalaynaysa maxaad umalaynaysay inaan waxba ogaanaynaa waxaad ku fikirtay aniga inaan waxba ogaanayn aamus maxaad ii qayaantay ii sheeg waan kuu sheegi lahaa ii sheeg aniga waxaana kuu samayn ma jirto waxayna iga haysaa barta taagantiin inaan idinku dilo laakiinse sharafteeda iyo sumcaddeeda aniga ilaalinaya ayaa waxaan kuu sheegayaa arrinteena gurigeena inaan ku dhammaysan doono oo muuskiis hortiisa aan ku wada hadlayni iswidda ayaan ku dhahay aniga kuma jecli ninkan ayaan jeclahay mana ku raacaayo ma ku raacaayo ma ku jecli maxaa sameynay laba habeen ayaad naagteeda gogol dhaaf la samaysay misena waxaad isku haysaa naga inaa tahay miya war maxaad u dilaysaa ninkan wax qalada ma iskala aniga ayaa soo raadsaday laba habeenoo kula saxday dhiiggiisa markaad aragtay dhiiggaaga ku kacsoomaa nikil siidaa siidaa aniga yaa ku yiri naagteeda gogol dhaaf la samey eeyo eegu dhali maxaa ku gey naagteeda maxaa ku gey naagteeda sharafteeda maxaad ugu cayaartay waxoosh baa tahay harabtana kugu dilin maa iga fa
sidaas inaa samaysid ma ahayn adiga quuto kale ma aynaan haysan annaga hadda maxaa samaysay ninka wuu noo yimid waa la hadli kartay kadibna furiinaad kocsadeed wuu ku fur lahaa way dhammaan lahayd arrintoo dhan ninkaas aniga ayaa kaa aqaano hadduu ifuro xataa nama deen lahayn labadeena buuna dili lahaa marka aniga adigoon israacaynaa sangabuur soo ma socotid adigaan ku jeclaa aniga hantidaydoo dhan xataa waan gadaayaa ma kaa haraayo aniga si dhabo ayaan kuu jeclahay hantidayda darteed ayaan u gadaaya laakiin saata meydkan soo asnay haddii la ogaado ka waran sidee lagu ogaanaya xuduudda ka xagga ayaan geynay booliska haddii ay ogaadaan xataa maxay naga qaadi karaan ii sheeg bal midaas annaga waxba nagama qaadi booliska haddii meydka helaan anaga gacanta aynu ugu dhigayaan xabsiyaan tegayna marka waxaa boon hadda inaan saldhigaan tagno aniga haddii aan xabadii riday adigana qaladkood igula jirtaa booliskana ma raba inayna kala fogeeyaan anii adiga adigana qaladkood ila gashay aniga qaladka waan galay jacaylka aan ku jeclaado waa qalad ninkaaga aan khiyaameeyo waa qalad anoo arkaayo inaad xabad ku dhibtidna taas qalad bay u ahayd inaan ka hadlay ahayd shilka markiis dhacay kadib ditoorka waxaas arkay boorsada ninkil aa jeebkaaga ku jirtay masiirkii leesqaati usaskuuma leeyahay macnaha adigana maskax mahaynin maskaxdaada waa qarbadneed iidana yaab waaye iidana tiyay ka faa'iidaysatay ninkilkiyay kaa dhigtay saasay baanta ku moodmoodoosaa laga wadaa gacliyaheeday baasataa wax makamaqna waay sheekada ninkil dhimashadiisana qofka shaki haayo aaba jirinba laakiin taaniyaa afartaagan kugu naqatay waayo gacantaaday fiirisay waxayna ogaatay adiga ninkal inaad ahayn waxyaabo badan ay baarbaartay dhiiggaaga baaritaan ku suubisa ka bacdin iidaaba nabturuq la sii maskiinta maahe laakiin ani hadda waxba ma qari karibe annan waa qaadqaad mooyaane hadda waa israacinaa booliskan tagaynaa warka runtiisaan sheegin way soo laabta soo maaha aniga ninkan inaan dilo ma rabin laakiin maxaan kaloo sameeyaahe ninkan ayaad inta keentay wax walbana wuu ogaaday waan ku qasbanaya markaas in aan dilo aniga ninkan nasiibkiisa ayaa noqday inuu geeriyoodo wuuna geeriyooday laakiin annaga nasiibkeena waa nolol waana noolaanaynaa labadeenna magaalo kale ayaan ku noolaanaynaa naga wad meeshaan waan israacaynaa ha anii adig waan ogolahay wejiga ninkal kuguma raacayo wejiga kabiir ayaan kugu raacayaa diyaar u tahay wejigayga mii soo celin kartaa kabiir meeshaan naga wad waan ku baryayaa meel kale ayaan ku wada hadlaynaa dadka intaysan nagu imaan wejigayga mii soo celin kartaa ayaan ku dhahay waan ku baryayaa nabad boolis ayaana qaban karo meeshaan naga wad wejigayga mii soo celin kartaa ayaan ku dhahay horta meel kale ayaan ku wada hadlaynaa soo kuma lihi naga wad wejigayga mii soo celin kartaa aniga ma kuu soo celin karo wejigaaga laakiin wax walbaan sameeyey aniga adiga dartaa ayaan u sameeyey waana ku jeclahay adigoo keliya ayaan ku jeclahay waan ku jeclahay been baad sheegaysaa been baad sheegaysaa adiga maya ima jeclid adiga jecel micniis mataqaanaa mar walba dantaada oo keliya ayaad fiirsanaysay anigaad igu danaysanaysay maya jecel micniis mataqaanaa jecel waa la siiyaa laakiinse adiga mar walba waa dhici jirtay mar wejigaygaad dhacday mar magacaygaad dhacday mar kalsooniyada ayaad dhacday adigoo dhan nolosheedu waad ku cayaartay laakiinse waxaad igu akrisay aniga inaan dilaa ahay oon dembigana aan kula jiro maskaxdeeda go'aanka ma qaadan qalbigaan go'aanka qaatay waa markuu warayso qalbiga aan go'aanka qaato waxaan ogaaday aniga inaan dilaa ahayn adiga aad dilaa tahay ciqaabtana keliga ayaa maraya aniga ma marayo aniga dembi kasta oo aan galay qinqaabta waad ila maraysaa adigana waan ogolaa ciqaab inaan maro ciqaabteedana waxa waaye mar alla markaan wejigay muraayad ku fiiriya ayaa ciqaab igu filan intaas
laakiinse adiga ciqaabtii ku marsinaa ma garanaysaa ninkir ya booliska markay arkaan ninkir meydkiisa iyagaa wax walba ogaanayo haddana booliska ayaan horgeynaya meydkan hadda booliiska miyaad u tagaysaane taas kaama ogolaan karo aniga inaadan iga fogaan darteed ayaan wax walba u sameeyey inaad fogaato ayaad doonaysaa soo maahan kabiir sidaan ma samayn kartid mana iga fogaan kartid aniga haa dilan waanahay aniga laakiin waxaan dilay qofkii ani adigana kala fogeyn lahaa oo keliya kabiir igama fogaan kartid istaag كبير كبير اقرا الله كبير انا هنا قلت له مره كبير اسبيتالك ايان كوغينا يا هذا كبير هاي قد من واكو بريا كبير اقرا الله كبير كبير ارخص يا ارد بهوقفل نصر قاعد ارجع هاي فوقان لكن qalad ayaad samaynaysaa ninkaas magaciisa haddii aad isticmaashid hantidiisa iyo weliba xaaskiisa ayaad helaysaa haddii aad diidid wax badan ayaa kaa dhumaaya soo moogid aniga ninkaas hantidiisa uma baahni naagtiisana uma baahni kaxay gaariga adiga noloshaada agteeda ma taalo noloshaada xabsiga ayay dhex taalaa xabsigaadna ku uraysaa adiga ma waxay kula tahay xabsiga haddii aad igeysid aniga inan kaa dabaharaay adiga kaama dabaharaay ani adigana xiriir adag ayaa naga dhexeeya naa aamusee kaxay gaariga naqso maxaad i wadataa adiga waqtigan wixii ka dambeeya aniga ayaa ku wato ya nolosha haddii aan kugu waayo geerida waan kugu heli karaa taas ma kula qaldan tahay cidna kala fogeyn karta ma lahan cidna kala fogeyn karta ma lahan kabiir waxaan rabaa dacwad inaad iga qortid magacayga waa kabiir manotra ninkana waa naagtiisa
naagtiis iyo aniga xiriir ayaa naga dhexeeyey. haye uguba xiriirka naga dhexeeyey wuxuu ahaa